مسؤولين كترسن جودة دسمها ودوين كقبلة عودة ليسلل مجرد لصق قابية سردة هيكون أمان حكومة الصومال لاندن على دسمها ودوين كيتلابوين كايك قاضي يلا حلنا عقارن كردينتا يدوان سحيين برلمان الصومال لانس لوجو دسوا ودوين كإسكحوا قبلة يدقموين كدلكا مسؤولين تن وشير جرايد فقط هوتيل كالرئيس مقالة بورما أيها وهرين وجم هذا الشيء مدحوينها الصومالي لان أحمد محمد سيرانيو تلابوين كوكوسكي هيدا دسمها ودوين كالصومال لان مجرد لدادا سار وسارد مدحتويدا الصوماليلاند soo kale waxay dhaliileen xubnaha mucaaradka ay sida qabdan u fasira arrimaha horumarka ee dhismaha wadooyinka dalka waa sida ay hadalka u dhigeen baarlamaanka Soomaaliland oo dhawaan ansixiyay in maxan ku raxaweeyo lacag oo qoondeeyo dariiqyada Soomaaliland runtii anagu hadana sardanahay oo aanu maxan ku raxa ahayn dadkii ugu horeeyay maxan ku raxa dariiqyada Soomaaliland waxaanu maxan ku raxaweeyo taageerina maxan ku raxa fikirkaas wanaagsan cid kasto dariiqyada wax ka qabataan waa soo dhaweynayna waxaan mar labaad hambalyo si gaar ah ugu direynaa wasiirka madaxtooyada Xasan Ali Xaaji Xasan oo runtii shakhsi agtayda hadana sardanahay qiimo badan ku leh dhamaan maxaan ku raxaa dariiqyada Soomaaliland maxaan ku raxaa si isku mid ah oo wanaagsan oo habaysan runtii wax uga qabtay waxa bariyahan runtii maxaan ku raxaa ku soo baxbaxaysay saxaafadda iyo maxaan ku raxaa meelahaas in maxaan ku raxaweeye wasiirka madaxtooyadu waxyaalo gaar ah si leexsaday runtii taas anagu hasaan asardanahay aad iyo aad baan maxaan ku raxaa arintaas u beeninaynaa waxaan leenahay cid kasta oo wadanka wax ka qabata ha ahaato maxaan ku raxaweeye madaxtooyada ha ahaato maxaan ku raxaweeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siilaanyo iyo cid kasta oo maxaan ku raxaa daneynaysa dariiqyada aad iyo aad baan anagu soo dhaweynaynaa waxaan leenahay cid kasta oo maxaan ku raxaa dariiqa wax ka qabata dariiqyada Soomaaliland magaciina ha jiro xukuumadda maanta taagan xukuumadii hore Soomaaliland dayaga qudoodu magac iyo maamus bay keeneen oo Soomaaliland bay soo dhiseen meel wanaagsan oo kaga tageen laakiin xukuumaddani waxay gaar ku sii noqotay wax qabadka dalka iyo dadka labadaba inta ay timid anagu wadooyinka ugu badan nimankii bilaabay waxaan ahay gobol ilaa gobol wadada in la isku xiro oo imika meelo badan oo Soomaaliland ka socda intii ka horeysay xukuumaddan dee wax dhinaca xukuumadda oo haba yaraatay aan ku tirsanayna ma jirtay qaaraanka ma garanaysaa dadweynaha iyo ganacsatada ku tirsanayn laakiin xukuumaddan intay timid alxamdulillah wixii waa naga furatay wax qabadkii gacanteedii ku qabatay iminkana waxoogaa dowladaha waaweyn baa odhan jiray markii dowladdu isbedesho waa lasii casriyeeyo madaxtooyadii baa wax la geeyey dariiqyadii wasiirkii madaxtooyada oo la odhan jiray Xirsi Ali Xaaji Xasan ayaa wax loo dhiibay ma garanaysaa dariiqyadii dabadeedna halkii mas-uulka imaaraygu noo fadhiisan jiray noo fadhiistay waa maalindooda ugu tagnay aad iyo aad baan ugu farxnay muraadkaan u tagnayna si yaro fudud buu noogu fuliyey waxaan saacad gudaheed gaadhin marka waxa weeye xukuumadda sidaa u fududaysay oo dalka min ceyri gaabo ilaa saylac in laga shaqeeyo ku tala gashay de baarlamaanku waa dhaweyd mar bay carqada gelin kareen oo wixii loo diray la yiri soo ansixiyo muddo yar ma garanaysaa cilaaqtameen de qof dadaalaya waxoogaa haddii ma garanaysaa lala garan waayo waxa ku yar dhacaya niyad jab dadku wax laga qaadayo ama bawrooda la cashuurayo ama xoolooda la cashuurayo ama magaalada si maxaaday haddii la cashuurayo waa anagoo ganacsadayaal kuwa loo banaynayo waa bulshada oo dhan marka annagii ayaaba tobajeeda lagu laba jibaan ayaa raalli ka ninkan magalaysta maxay hayday magalaysta banaanka jooga ee sidii laga qaaday ee magalaysta waxba kaga baabur maxay soo dejin ay hadana halka kale waxba la lusanaya waxba gaar loo leeyahay waa dadka wax lagu qabanaya dadka lagu hormaraya dhinaca kale si kastaba ahaatee waa markii ugu horreeyay mas-uuliyiinta hay'adda dhismaha wadooyinka ee gobollada Awdal iyo Sirel ee magaceeda la yidhaahdo Asarda ay ka hadlaan kordhinta takaaliifta cashuuraha ee ay ansixiyeen baarlamaanka ee loogu talagalay dhismaha wadooyinka ee gobollada Somaliland Hashim Sheekh Cumar Good Somali Sat TV Boorama